Yaasiin Xaaji Daahir oo maanta sii daayay waraaq ayaa wuxuu ku sheegay 5 arrimood oo u qabsamay 3 sano oo ka ahaa agaasinka hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. ayaa xarabka ku dhuftay waxyaalihii u qabsamay 3 sano ee hogaaminaya hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. wuxuu yiri waxaa la diiday dhalinyaro xarbisan markaana si heersara u tababaran iyo khubarada caalamiga lama tababaray xilligii dowladda kacdoonka loona tababaray sirdoonka qaranka wada. wuxuu yiri aniga ahaan way ugu cusbay shaqadii la diiday hase yeeshee dhaliin iyo khubarada caalamiga oo waxaan dhexda u xirtay u baahnaa in la isku xiro markaana la mideeyo. dhanka kale wuxuu fahmaa maanka la dulacay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wuxuuna yiri asiga ayaa ciidamada deegaan jiray mar walba una sheegi jiray kuna kalsoonaa. hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ka hadlay xagga ammaanka asagoo sheegay in la dhisay ciidamo dharxada markaana lagu kalsoonaan karo amniga dalka. magaalada amniga Muqdisho buu yiri 80% ay dhacda ayaa la hirgelin jiray maalintii halka 2 sano u dambeysay 9% la hirgeliyay hoosna ay u soo dhacday amni daradii baahsanayd ee ka jirtay magaalada madaxda Muqdisho. oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ka sii hadlay dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa oo ka soo maray intuu xukunka joogay. wuxuuna sheegay 1 iyo 2 haddii aan kaga soo qabtay idinma soo koobi karee waxay ula yaabka badnaa hooyadii ku soo biirtay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka markaana isdiiwaan gelisay ayadoo xafiiska loo sii wado buuxisayna yiri shuruudaha laga rabay laguna soo biiray hay'adda sirdoonka qaranka. diiwaangeliyuhu waa wiilkeeda iyo hooyadaas ku soo biirayso hay'adda sirdoonka qaranka mana ay ogeyn inuu ka shaqo galo halka. 2 wuxuu sheegay inuu wiil ka tirsanaa hay'adda sirdoonka qaranka iyo nabad sugidda uu guursaday gabar u shaqayn jiray kooxda Al-Shabaab markaana u qaabilsanayd dabagalka hay'adda sirdoonka qaranka oo u baahnayd inay ka hesho sir markaana ay asagana qaarajiso. balse waxaan kula talinay yiri maadaama aan ogaanay inuu gabadhan nolol fiican kula noolaado markaana uu noo soo bandhigay ahaanba sirta waxaana la soo qabtay noona suurtagelisay arrintaasi 12 Al-Shabaab in la qabto loona gudbiyo maxkamadda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya laguna xukumo kala duwan. wuxuu sheegay inay soo xiiseeyeen sirdoonka Soomaaliya hay'ado kala duwan ee heer caalami ahna sirdoomo u shaqeeya geeska Afrika iyo sidoo kale wadamada caalamka oo dhan. wuxuu sheegay inuu gaarsiiyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya inay heer ay kula wareegaan amniga dalka Soomaaliya. Fahad ayaa qoraalkiisa wuxuu ku soo gabagabeeyay markii wanaag aad fasho wanaag ayaa la fishaa oo uga gul leeyahay way sii shaqayn doontaa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka.